Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waa salaamaya Bahda Duuga Academy. Muuqaalkani waxaan maanta kaga bogan doonaa sida loo sameeyo search. Okay, sida halka uga jeedid xaggan waxaan ku haysanaa table ay xogna ku jirto. Xaggan isagoo column ayaa inoo yaala. So hadda haddii aan search gareeyo Ali, waxaa arkaysaa inaan helayo Ali iyo numberka shanaad iyo serieskii uu sameeyey. Okay, sidaa darteed waxaan tusi doonaa marka qaabka aad u sameynaysid searchingkaas. So aan isla sameyno marka ila soco. Ugu horreyn xogtaada soo diyaarsanaysaa. Waxaan kugula talinayaa waliba inaad table ka dhigatid. Waa talo table markaa ka dhigatid magac u sameyso. Aniga hadda waxaan samaystay magac la yiraahdo data. Waxaan ugu talagalay yani xogta. So marka ugu horreysa waxaan sameyn diyaarsan doonaa searchingkii. Xagga waxaan iskaga qoran doonaa qoraal aan ku sheegay maaragtay search iskaga qoran doono. Background color ayaan siinayaa cagaar oo kale. Fartan cadaan ayaan ka dhigayaa. Okay, halkan waxaan rabaa inaan dhigto searchingkii. Okay, waxaan tegi doonaa developer tabka. Haddii uu developer tabka kuu furnayn, waxaad sameynaysaa qaybtaada ribbon-ka ayaad iska meel right click ku dhig. Kadib waxaad leedahay customize ribbon. Customize ribbon markaad tiraahid waxaad tigta soo saari doontaa developer tabkaas ayaad tigta soo saari doontaa. Kadibna okay ayaad leedahay. Good, saasaad ku haysataa. Marka waxaad tegi doontaa insert markaad tagtid waxaad leedahay waxaan u baahanahay text box. Sida aad ujeedid text box waa kaas. Text box kaas ayaan click siinayaa. Kadibna waan ku darw gareynayaa ku sawirayaa anigoo qaybta mouse-ka left-ga haya oo ku jiidayaa. Good, right click baan ku leeyahay markaa. Right click markaan ku yiraahdo waxaan tegayaa properties-ka. Okay, waxaan rabnaa inaan cell ku xidhno. Hadda waxaan joognaa L4. So L4 baan rabaa inaan ku xidho si maaragtay oo input-ka background-ka uga qaato. Xaggan aan tegayaa link cell. Linked cell-ka ayaan hortiisa wax ku qori doonaa L4. Kadibna iska xidhi doonaa close yaan iska leeyahay. Intaa markaa samaysid hadda waxa ku diyaarsan yihiin waxaad soo koobiyeysan doontaa inta tan headers-ka soo koobiyeyso control C dheh. Xaggan iska soo dhigo control V dheh. Okay, hal mar aynu hoos uga dejino halkan control V ku leenahay. Good, control V markaa ku niraahno hatta headers-ki inuu diyaarsan yihiin. Waxa kale oo inuu diyaarsan maaragtay. Okay, aan lag siino. Good, waxaan tegi doonaa marka column-ka saleska ayaan tegi doonaa oo sales person-ka ayaan teginaa. Kadib waxaan isticmaali doonaa filter function ayaan isticmaali doonaa. Waxaan leeyahay marka equal. Kadibna waxaan leeyahay filter tab baan leeyahay. Marka table-ka aad filter gareynaysid haddii magac ula baxsatay magac baa ula baxaysa. Haddii kalena waad hareynaysaa table-ka xogtaada. So anaga hadda data ayaan ula baxay. Kaas automatically wuu qaadanayaa magaca aan u bixistay. Kadib xogta markaa soo doorto waxaan leeyahay comma. Kadibna waxaan isticmaali doonaa is number function. Kadibna search ayaan leeyahay. Intaa marka aad samaysid waxaa laga rabaa marka inaad sheegtid xagee wax ku search gareynaynaa. Waxaan ku search gareynaynaa L4. So L4 ayaan leeyahay. Sorry, L4 ay ka hooseysaa L3 kaasna waa inay soo saxnaa reference-ga aan siinay hadhow. L3 marka aan leeyahay iraahdo kadibna waxaan leeyahay comma markaan iraahdo waxaan dooran doonaa column-kii sales person-ka magacaan rabaa inaan la ku search gareeyo. Magacaan ku search gareeyo marka aan doorto kadibna waxaan leeyahay waan ku xirayaa bracket-ka ayaan ku xirayaa. Comma ayaan leeyahay. Waxaan sheegayaa haddii result la soo waayo maxaa qofka loo sheegaya. Yani wax search-ka haddii qofku magacaan jirin geliyo oo kale waxaan iskaga qori doonaa no results found. No results waxaan iskaga qori doonaa bracket-ka iyo xidhman ayaan ku xirayaa. Enter ayaan leeyahay. Hadda waxaan haystaa table-kii oo column ah ayaan haystaa si aad ujeedid. Okay, waliba control X dheh. Control V dheh. Kaas xaggan wankaynu dhigaynaa si maar table-ku u dhaafin xogtu column-yadeeda. Okay, hadda kan waa inay soo yara saxnaa. Okay, L4 baynu ku xidhnay waa L3 ka dhignaa. L3 good. Marka design-ka waa iska xidhayaa. Halkan aan ku noqonayaa design mode-ka ayaan taabanayaa si maaragtay editing-ka igu furmo. Haddaan Ali search gareeyo good Ali baan haystaa.
haddaan search gareeyo Yusuf. Okay, ya markaan qoro yani exactly maxaa ya ugu soo dhow ayaa laysoo qabanaya Ayuub maxaa la Ayaan iyo Yusuf. So aniga haddaan Ayaan rabo ayaan qoro u fiirso ayaan baa isoo baxaysa. haddaan rabo Yusuf ay soo baxaya markaasna waxaan arki karaa saleska iyo maaragtay wuxuu sameeyo oo dhan. sida fudud ayaad maaragtay u samaysan kartaa. haddii muuqaalka wuxuu aad ka faa'iiday muuqaalka copy link inoo taabo una soo bir haddaad hore noola joogin looftan hayna ka ilaawin mahadsanid.